asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkan waa radio rugsan 94.4 megahertz anigoo lisdaawada xasan ah iyo Leila Cusmaan ayaa warkaasi wadajir halkan uga soo jeedinaya qodobada wararkana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta khudbad ka jeedinaya shir madaxeedka Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa maamulka Puntland oo lagu wado in maalinta birita ah ay qisaas ku fuliyeen saddexdii eedeysan ee loo haysto falkii dilka iyo kufsiga isugu jiray loo marxuumad Caaisha Ilyas Aadan sarakac ku yimid qiimaha kalluunka lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle oo eedeeyay guddoonka baarlamaanka Hirshabelle xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo dhaliilay siyaasadda dibadda ee dalkaasi maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo wada qorshe dib loogu dayactirayo xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee magaalada Marka akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dad rayid ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Syria Britain oo ku dhawaaqday inuu caabuqa coronavirus-ka uu yahay mid sii kordhaya dalkaasi isla markaana sheegtay in xarumo caafimaad oo wax looga qabanayo dadka uu soo ritay cudurkaasi la hirgelinayo waa duhurnimo isniina taariikhdu ay tahay 10 bisha Febraayo ee sanadka 2020 kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan oo halkan aynu ka soo wada sheedino madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka qayb galaya shir madaxeedka ururka midowga Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa ayaa lagu wadaa in halkaasi khudbad uu ka jeediyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa wax laga weydiiyay khudbadda madaxweyne Farmaajo waxaana uu sheegay in madaxweynaha khudbadiisa uu diiradda uu ku saari doono xaaladda dalka deyn cafinta iyo sidoo kale qodobo kale Danjire Cawad ayaa waxa inta uu ku daraya in hadal jeedinta madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo muhiim ay u tahay geedi socodka nabadda Soomaaliya maadaama madasha ay ku sugan yihiin dalal badan oo Afrikaan ah isla markaana la doonayo in xal laga gaaro mushkiladaha ka jira qaaradda Afrika shirkan ma aha mid ay dowladdu ay ku raadinayso dhaqaale ayuu yiri balse ay tahay in dowladda federaalku ay ku soo bandhigayso sidii isbedel lagaga hirgelin lahaa Soomaaliya iyo qorshaha kale ee taageerada ee dowladda Soomaaliya ay ka raadinayso wadamada caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii dalka looga dhaafi lahaa deynta isla markaana lagaga cafin lahaa waxaana inta uu ku daray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya in kulamo gaargaar ah uu madaxweynaha uu la qaadan doono madaxda kale ee ka qayb galaysa shir madaxeedka dalalka Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa isla markaana gelinka dambe la soo gabagabeyn doono sarakac ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka suuqyada magaalada Muqdisho onkod aadan ayaa warkan ku eegaya waxaa sarakac xoogan ku yimid qiimihii la iibinayay kalluunka noociisa kala duwan suuqyada magaalada caasimadda ee Muqdisho kawaanka suuqa Xamarweyne oo aan maanta booqday ayaa waxa ay sheegeen ganacsatada kalluunka iibisay in aad u kacay qiimaha kalluunka mid ka mid ah ganacsadaasi oo ii warramay ayaa xuseen kalluunka kiiladii awal la iibinaya $1 ilaa iyo $1 balse hadda $5 la iibinaya kiilada kalluunka ama malayga kale anaga waxaan malaayleedu ku ganacsato kawaanka Xamarweyne ka qaadnaa waxa uu qaadnaa bakaaro hadda midlan kawaanka Xamarweyne wuxuu ku joogaa kiilada jaadarka $5 yumbi cadaan 7 ama 6 ku joogaa ma gastaade markaas marka qiimo oo macnaa sarkac waxa uu keenay baddo dabeel gelisay ee xiliyadii oo malaayga guuray hadda lagu jiraa kan hadda qiimihiisa ay sheegtay awal imisoo aha abal waxaa la gidaaya $2 jeedar toonaha waay $2 la gidaaya laakiin se hadda $5 keer ku markaysid maya yumbi cadda uu qaalisan kinga fish waay kaas asoo madaxiisa iyo calooshiisa iyo qashinkiisa wataa $5 marmar qaar la gadaa calaashan xilli waxaan galnaa xilli dheereed xillina xagaayaan galnaa hadda waxaan ku jirnaa waqtiyadii malaay waasadaan ku jirnaa malaay waan la'yahay hadda
isxaaq xaydar mayow oo isna iiga waramay in kalluumaysatada qaarkood ay ka baqanayaan wakhtigaani islamarkaana inay gudaha u galaan badda dabaylo xoogan oo ka jira wakhtigan gudaha badda aawadeed waxaana uu carabka ku dhuftay in dhibaatooyin kala duwan ka soo gaartay dhallinyarada ka soo jilaabatay gudaha badda taasina ay cabsi xoogan ku keentay kabaanka malaayigaan ka shaqeynaa alxamdulilah niyo malaayiga ayaantaan xoogaa baddii dooman badan baddiyaa isbeddeshay dooman badanaa lagu waayey iyo macal dadkeedaa lagu waayey niyoo taala ajigeedii hadda baddii sidii hore ma u kacsan hadda waa degtay iyadoo degtay shaqaalihii hadda badda ka shaqaynaayay doomanka ay wadaan iyo badda isma lahan doomanka ay wadaan waxaa waaye kabaaladooda way yar tahay baddii hadda waxay isleeyihiin wiilashii dhinteen oo meeshii iyo doomankii la waayey bal niyoo haddana labadii wiil oo hertiyoo ka shaqaynaysa iyo maalkii amee lagu waayaa la isdhahay wiilashii hadda way iska cabsadeen qaar oo halaalaha iska baxaan oo maalimihii oo malaayigan oo fareeshka maalintii iska soo gaataan oo duuradii iska soo galo hadda intaasaan iskiga mudnaa biryahan warniyo malaayiga wallaahi daraad beeciisa wuxuu ahay shacabka aan iskugu ogeynay qiimaha kiilada malaay $1 iyo bar ilaa $2 meesha ugu qaalisan ilaa $2 maanta malaayigii qiimahaas la gadaayay maanta wuxuu maraa $4 oo maraa ilaa $3 iyo bar u dhexeeya ummaddana macnaha soomaalidan hadda sida hore ma oo jabkooda waa iska jaangurmay wax hadda oo biilkii iyo hilibkii waa isku dheelitiran yahay warniyo cimilada waxaa waaye niyo xoogaa 2 maalin duufaan waan aragnay 2 maalin oo duufaan waan aragnay oo badda ku dhufatay adiga doomankii meesha ay tagayeen ayagoo badda ku maqan duufaan ku dhacay doomankii xilliyada dabeelaha xooggan ay jiraan ee waxay saameyn ku yeelataa kalluumaysatada qaar inay gudaha u galaan gudaha badda taasi oo sarkac ku keenta qiimaha la kala iibsada kalluunka suuqyada magaalada caasimadda ee muqdisho puntland ayaa maalinta birita ah lagu wadaa in qisaas ay ku fuliyaan 3 eedaysane ee loo haystay afalkii dilka iyo kufsiga isugu jiray islamarkaana loo geystay marxuumad caaisha ilyaas aadan qarjab 12 bishii January ee sanadkii la soo dhaafay xeer ilaalinta guud ee maamulka Puntland ayaa si rasmi ah u mudeeyay waqtiga la fulin doono qisaasta 3 eedaysane ee kiiskaasi loo haystay cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame ayaa lagu helayaa in ay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii loo geystay marxuumad caaisha ilyaas aadan bishii Febraayo ee sanadkii 2019 islamarkaana loogu geystay magaalada Gaalkacyo raggaasi ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ee Puntland waxa ay xukunka dilka ah ay ku xukuntay 12 May ee 2019 xukunkaas oo maxkamadda racfaankuna ay ku raacday 30 Juun ee sanadkii 2019 sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland ayaa 25 Agosto ee 2019 si rasmi ah u eeday ay soo riday islamarkaana ay ku dhawaaqday maxkamadda waxaana sidoo kale maxkamadda racfaanka ayaa go'aan kale oo ay qaadatay isla sidaas kale ay ku eeday go'aanka kale ee hore ay u qaadatay maxkamadda darajada koowaad ee Puntland ee gobolka Nugaal ee xukunkaasi lagu riday 3 eedaysane hase ahaatee waxaa cadeymo buuxa iyo kadib marqaatiyaal oo maxkamadda racfaanku ay sheegtay kadib markii lagu helay in raggaasi ay ahaayeen kuwii sida rasmiga uga dambeeyey falkaasi isugu jiray dilka iyo kufsiga islamarkaana loo geystay gabadhaasi yareeda marxuumad caaisha ilyaas aadan falkaas oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo hayeeshee maamulka Puntland gaar ahaan qaybta garsoorka Puntland ayaa la filayaa in maalinta birita ay 3daasi nin falkaasi qisaasta ah ay ku fuliyaan maamulka gobolka Shabeellada hoose ayaa wada qorshe dib loogu dhisay xarunta gobolka Shabeellada hoose mahad mutawakil ayaa warbixintan ku eegaya wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa maantay gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose safarka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose waxa ku wehelinaya xubno ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha hoose ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda iyo mas'uuliyiin kale mas-uuliyiinta magaalada Marka ayaa ku soo dhaweeyay halkaas iyo xubnaha maamulka gobolka qaar ka mid ah waxgaradka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka
mas-uuliyiinta ayaa kormeer ku sameeyey xarunta gobolka shabeellaha hoose taasoo xilligan uu ka muuqdo burbur xoogan waxaana maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu horeeya gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay inay bilaabayaan dib u dhiska xaruntaas iyo goobaha kale ee ku shaqeeyo maamulka magaalada Marka. gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax inta uu ku sugan yahay magaalada Marka waxaa qorshuhu yahay inuu kulamo gaar ah la qaato saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa eedeyn u jeediyey gudoonka baarlamaanka ee maamulkaasi Hirshabelle Maxamed Cabdi Xasan ayaa faahfaahinaya. waqti xileedka baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa ku eg dhamaadka sanadkan iyadoo ay jiraan dhaliilo ku aadan waxqabad la'aanta loo jeedinayo xildhibaanada maamulkaasi. waraysi uu siiyey xildhibaan Cabdirashiid Cabdixakiin Warsame oo kamid ah baarlamaanka Hirshabelle waxa uu tilmaamay in caqabada ugu weyn ee ka jirto dhanka gudoonka baarlamaanka uu sheegay inay jiraan sharciyo badan oo iyagu ay ansixiyeen isla markaana gabi ahaanba laga hor istaagay in lagu dhaqmo. waxa uu tilmaamay haddii shaqada Hirshabelle sidaan ay ku sii socoto aanay suuragal ahayn in maamul halkaa uu ka shaqeeyo. gudoonka baarlamaanka ama gudoomiyaha baarlamaanka dhinacaas waxaa ka jirta in sharcigii iyo nidaamkii la iskaga qaatay wax buug asagu mataqaana qof jeebka iska gashanayo asagu suu raba iska yeelayo wuxuuna maahana waa sharci dhan oo maamul baarlamaan baa u codeeyey waa laga dooday waxaa la isu keenay qodobada mataqaana ilaa 13 qodob oo markaas loo arkaayo inaysan la jaan qaadi karin wacyiga hadda dalku ku jiro sidii ugu macquulsanayd ayaa mataqaanaa liir waxa looga bedelo midaas ayada ah ilaa 7 qodob baarlamaanku waana ka doodeen waana mataqaanaa loo codeeyey cod aqlabiyad laho oo baarlamaanka 99 marka xilligaas ayada 98 buu ahaa ka bacdi hal xibin oo laalayd ayaa dib lagaga soo mataqaanaa daray marka ilaa iyo 80 iyo dhowr xibnood ayaa u coday gudoonka waa lala xisaabtamay waa lala hadlay waa in badan baa mataqaanaa lagu soo celceliyey markastaba ballanqaad iyo daabacaadiisii iyo waxbaan ku mashquulsanahay iyo maruu yidhaahdo waa waxbaa iga bilaaban hoggaanka baarlamaanka ama gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhaliil lahaa asagaa jaanisyo badan iyo inuu ku shaqeeyo magaalo madaxdii Hirshabelle ay ku adkaatay xamarna ka dhigtay xarun taasa marka waxay noqotay in baarlamaankii mar haddii gudoonka wuxuu sidoo kale sheegay xildhibaanku in magaalada Jowhar ay ka soconayso qorshe ku aadan in loo diyaar garoobo soo xilista xildhibaano kale oo bedela kuwa hadda shaqeynaya. waxa uu tilmaamay in madaxda ugu sarreysa maamulkaas shaqooyinka ugu badnaa aanay ka suurogelin balse iyagu dhankooda ay wadaan weli la xisaabtanka xukuumadda iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa dhaliilay siyaasadda arrimaha dibadda ee Kenya dhanka Soomaaliya. xildhibaan Moses Kori oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya kuna metelaya madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa dhaleeceen u jeediyay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya. wuxuu sheegay in siyaasadda Kenya arrimaha Soomaaliya ay tahay mid qar iska tuurnimo ah oo ay sameysay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Kenya. Moses wuxuu sheegay in siyaasadda Kenya ee Soomaaliya kaliya aysan ahayn Jubbaland balse looga baahan yahay wasiirka arrimaha dibadda Rayo Momo inay la timaado siyaasad aan ahayn tan ay hadda ku shaqeyso ee arrimaha dibadda. Jubbaland ma noqon karto qodobka kaliya ee qeexayo siyaasadda Soomaaliya. waxaan ugu baaqayaa wasiirka arrimaha dibadda Kenya inay qeexdo siyaasadda arrimaha dibadda oo aysan ku shabaysan siyaasadda ka dhaxal siinaysa tan ay kula shaqeyso madaxweynaha Jubbaland oo kaliya. mudanahan ayaa sidoo kale ka hadlay weerarada al-shabaab ay ku hayaan dalka Kenya wuxuuna sheegay inaysan ahayn wax la qaadan karo arintaas iyadoo ciidamada Soomaaliya ay joogaan Mandheera. al-shabaab waxay weeraraan Lamu ciidamada Soomaaliya waxa ay ku sugan yihiin Mandheera ma ahan wax la qaadan karo waxna haysanaa dhibaatooyin nagu filan. dadka Kenyaanka ah ayaa walaac ka muujinaya xiisada ka taagan xadka iyo ciidanka daacad oo Cabdirashiid Janan ee jooga Mandheera. xildhibaan kale oo laga soo doortay Mandheera ayaa kol hore dhaliil u jeediyay Kenya wuxuuna sheegay in ciidamada Janan ay qalqal gelinayaan ammaanka Mandheera. halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa Radio Ruxan.
dowladda Britain ayaa maanta waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu caabuqa cusub ee coronavirus khatar iyo cabsi la filan karo uu ku yahay caafimaadka dadka ku nool dalka Britain. Hadal qoraal ah oo soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa waxaa lagu sheegay in faafista caabuqaasi khatar uu yahay loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin looga hortagayo isku gudbintiisa. Waxaa kale uu sheegay in 200 oo muwaadiniin British ah iyo kuwa ka soo jeeda dalalka Yurub laga soo daadguriyay magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee bartamaha dalka Shiinaha halkaas oo halkii uu ka soo bilowday fayraska corona. Dhinaca kale dhowr dal oo European ayaa laga soo wariyay kiisaska caabuqaasi waxaana dalalkaasi ka mid ah Britain, Jarmalka, Spain, Talyaaniga, Belgium, Sweden, Finland iyo Russia. dad rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday dalka Syria ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Russia 24kii saac ee la soo dhaafay ay fuliyeen. Kooxaha la socodka xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa sheegeen in duqeynta diyaaradaha Russia ay ku waxyeeloobeen 5 qof oo caruur ay u badnaayeen. Dhinaca kale duqeyn kale oo diyaaradaha dagaalka Russia ay geysteen xilli dambe oo xalay ah ayaa qasaare waxay ka soo gaartay dad rayid ah. guud ahaan warka duhurnimo oo rugsan aad kala socoteen wanaga inta